Sobletin bego waheda singolade Upultina dunya waheda malte Sobletin bego waheda simpilade Atum gargar pagani kebira sidabe umanani runtii waxaa maanta farxad noo ah inaan mar labaad soo booqano hooyooyinkii Soomaaliyeed ee dhibaataysnaa ee waayeelkaha sidaad aragtaan tan waa hooyo Barey Maxamed galgalo oo ah hooyo jirta 136 sano sida noo sheegay ehelkeeda tana waa gabar ayada ay dhashay oo jirta 106 sano sida noo sheegeen dadka ehelkeeda waa dad dhalay waxa hooyadan oo hooyo Barey waxay dhashay gabadhan qaali dhimbil cabdi runtii hooyadan waa hooyo waayeela sidaad aragtaan waa hooyo dhibaataysan gabadhana waa gabar indhahala iyadana dhagahala sida la sheegay dhagaleen sida loo sheegay dhagoole way ku dhalatay indhahana intay ay weyneed bay beeshay ninkan aad aragtaan waxa la yiraahdaa Hashim Cabdi Dhimbil sida uu noo sheegay hooyadana dhashay gabadhana uu la dhashay waa qofka kaliya ee labadan qof daryeela taadiisana wuxuu jiraa 83 sano sida noo sheegay waligii ma guursanin waxba ma dhalin runtiina waa saddex qof oo aan isdaamin laakiin ayaga ugu daran waxa xusid mudan dadka walaalaha muslimiinta aan wanaagsan aan la qaybsano maalinka ugu horeysan halkan imaanayna hooyadan Soomaaliyeed gaar ahaan hooyadan waayeelka runtii dirac xitaa maysan qabin go'an ay qabtay oo dusha ka saarnaa oo runtii guntiina iyo dirac iyo wax kasta oo ah go'ana saarnaa meesha jiiftana waa arkayseen waxa xusid mudan in ay ku jiiftay tan ay u ahayd bahashan waad aragtaan waa kartoonkaas baa gool u ahaa sintan sida noo sheegteen sida noo sheegeen dadkan ehelkeeda way ka muruxday qaarka dambe dhan way muruxsan tahay way boogowday dhulkiibay yaa muruxiyay runtiina waa gogol la'aan waxaan aad uga mahad celinaynaa in dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay ku soo dhiiradeen oo ay deeq u soo direen walow aan bari iyo wixii ka dambeeyay hadii la yiraahdo aan idin soo bandhigi doono deeqdii aad soo gaarsiiseen hooyadan iyadoo si toos ah u guddoonsiin doono balse muuqaalkan hadda waxaan idinku talagalay in aad bal marxaati ka ahaataan dadkii waayeelka ah ee internetka iyo website-yada iyo Facebook aan idin soo gelin inay yihiin dad jira inay yihiin wax xaqiiqo inay yihiin saddexdan qof ee isdhalay ee waayeelka waxa xusid mudan hadda labadan qof ee aragtaan ee gabadhan hadda waa gabar 106 sano jirta hooyadana dhashay waxa runtii la yaab ah in kastoo aysan arkaynin hadda dhagahan waxba ka maqlayn haddana way taabanaysaa way u tuujinaysaa maaragtay waa qof wax dhalay waa qof la dhalay wali waxaad moodaa inay gacanta bay ku taabanaysaa mararka qaar way ku tufaysaa xitaa waad aragtaan fartay maaragtay andhuufta ku tufaysaa hooyada laakiin waxaas ma kala oga waad aragtaan waxa dadka hadda sidan u galay waa runtii gaajo macaluul iyo dhibaato waxa kaliya ay quutaan waxa weeye moordeyda ay bixiyaan hay'adaha samafalka taasoo runtii qof jira intaas oo aan culaheeda marayn waxa xusid mudan hooyadan xitaa inaysan ilka lahayn oo aysan ilka cambulo ku ruugta lahayn cuntada jilicsanaa caanihi iyo waxyaalaha la midkaan aysan helaynin waxaas intaasi ka sii daran hooyga dadkan ay ku jiraan oo sidaad aragtaan meeshan aad aragtaan oo hadda qorraxda anaga baan hadda la fadhin laana runtii waxaan dhigsan hadda ay qorrax tahay oo bacdan banaanka ah iyo meeshan bay jiifaan runtiina waa wax aysan nafta bini'aadamka aysan siin karin dadkan siday noo sheegeen waayeelka waxay qaxootiga ku sugnaayeen muddo ka badan 17 sano halkan oo runtii ay dhibaato kala duwan ku qabaan marka walaalayaal markastoo joogtaan waad aragtaan dadkii aad idin soo bandhignay ee website-yada uu kamid yahay Dawa Media News ama Dawa iyo sidoo kale Facebook-yada iyo warbaahinta kala duwan idin soo bandhignay waxaan ku faraxsanahay annagoo ah bahdan soo bandhigtay barnaamijkan in dad badan oo Soomaaliyeed ay qaradaha adduunka ay ka soo jawaabeen codsigii aan idin soo bandhigay ka soo jawaabteen waxaan si idin ka ballan qaadaynaa muuqaalka ku xigay walaalayaal
oo saacado gudahooda hadduu ilaahay yiraahdo wixii ka dambeeya aad ku arki doontaan in hooyooyinkan oo hadda dhulkay fadhiyaan sariiro ku jiifa oo joodariyaal ku jiifa oo dhar wanaagsan qaba oo waxaad u soo dirtaan gacanta ku haysta oo faraxsan inaad arki doontaan baa idinka ballan qaadayna